Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada muuqaal kale oo qiimo badan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose ee commentiskana inoola wadaag wixii fikir iyo faalaa iyo dhiirigelinba. Mahadsanid. Long March 5B kani waa gantaal xoogan oo ah nooca xambaara dayax-gacmeedyada. Dhirirkiisu waa 30 mitir, baliciisuna waa 5 mitir. Gantaalkan aadka u xoogan ayaa la filayaa haraadigiisa inuu ku soo dhaco oogada sare ee dhulka kadib markii uu ka farabaxsaday barmaamulka dayax-gacmeedyada ee dalka China. Wadankan ayaa ku guuldareystay xakameynta gantaalkan awoodda sare leh ee suuragal weyn tahay inuu geysto khasaare ballaaran. 2021 Abriil 29-keedii waxay ahayd maalintii ay China ay dirtay dayax-gacmeedkan. China ayaa ku guuldareystay si xakameynta gantaalkan culeyskiisu yahay 21 tan. Gantaalkan aadka u dheereeya ayaa ku dul meereysanaya hawada sare ee dhulka, iyadoo cabsi weyn laga qabo in uu geysto dhibaato ballaaran. Khubarada ku takhasusay cilmigan ayaa baaritaan ku wada gantaalkan, iyagoo sheegay in uu soo dhici doono gantaalkan 8 May oo ku aadan Sabtida soo food leh. Taa waxaa dheer in ay sheegeen inuu gantaalkan ku soo dhici karo magaalooyinka New York, Madrid, koonfurta dalka Chile iyo magaalada Wellington ee dalka New Zealand. Waxaa kaloo walaac xoogan laga muujinayaa suuragalnimada uu ku soo dhici karo dalalka qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta. Warbaahiyeyaasha caalamka iyo guud ahaan baraha bulshada ayaa si ballaaran looga hadalhayaa gantaalkan iyo khasaaraha uu geysan karo, iyadoo laga cabsi qabo in uu haleelo meel ay shacabku ku badan yihiin ama dhismooyin. Maalinka Sabtida ah oo lagu sheegay in uu yahay maalinka gantaalkani uu soo gaari doono oogada sare ee dhulka ayaa si ballaaran loo ogaan doonaa dhibaatada uu geysan doono. Ilaahay ha ka badbaadiyo musiibada gantaalkan shacabka Soomaalida meel walba ay dunida daafeehda joogaan iyo qof walba oo haysta diinta sharafta badan ee Islaamka. Mahadsanidin dhammaantiin, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Like saar oo u share garee asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan. Mahadsanid.